إن لله وإنا إليه راجعون. أنت دمت إله نحرسه، أنت دعوة عنها إله حانوك برينا سو كبشو دقدقة runtii waa masiibo dad intaa la eg in sabab la-aan loo laayo. isbitaalka caawa aan soo booqanay dadka ku jiro dhaawaca runtii waa dad u baahan daryeel gaara u baahan. marka hore waxaan u mahadcelinaynaa dowladda Turkiga oo berrito diyaarad keeni doonta oo dadka dhaawacyadooda aan halkaa wax loogu qaban karin u qaadi doonta dalkeeda kusoo daaweyn doonta. runtii aadan uga xunnahay annaga ka baarlamaan ahaan in ay soo noqdaan waxyaabo noocan ah oo qarax dad waxba aan galabsan arday jaamacadahoodii iskuulaadkoodii u socda dad kaloo baabuurtii BL ka saaran oo shaqadoodii u socda. dadka noocaas ah in la laayo shareecada islaamkana ma qabto. waxaan leenahay inta falalka noocaas ku kacaysa ummadda Soomaaliyeed way ka daaleen mushkiladan aad ku haysaan. ma aaminsani diin ahaan in loo samaynayo. waxaan aaminsanahay waa fal argagixiso oo la rabo ummaddan in lagu baabi'iyo indhaha lagu tiro. halkan waxaan ku soo booqanay gabar ka mid ah gabdhaha jaamacadda Banaadir wax ka dhigta. runtii aad dareemi kartaan siday ahayd. ilaahay ha caafiyo. waxaan rajaynaynaa ayadana berrito dadka la qaadi doono inay gasho. qodobka kale oo aan rabno inaan la hadalno bulshada Soomaaliyeed waad u jeedaan dee waxaa idinku socda mar walba waxyaabo noocaana idinku soo noqdo oo halaagan ah. marka inaad u midowdaan meel aad uga soo wada jeedsataan sidaad isaga difaaci lahaydeen. difaacu dee qori keliya ma aha. mar haddii la iskaalmaysto wax walba waa la iska difaaci karaa. marka waxaan rabaa mar labaad inaan u mahadceliyo dhaqaatiirta halkan ka shaqaysa oo runtii mar walba juhdi fara badan ku bixiya dhibaatooyin noocan ah markay yimaadaan walaalahoodii Soomaaliya garab istaaga. waxaan kaloo uga tacsiyeynaynaa dadkii kaga dhintay 2 qofaa kaga dhimatay oo dhalashadoodii Turki ay tahay, qofna wuu ku dhaawacmay sida dhakhtarka uu noo sheegay. ayagana waa uga tacsiyeynaynaa. waxaan leenahay dhibka idin gaaray ilaa waxaan ka baryaynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen samir iyo iimaan Allah ka siiyo. midka dhaawacaan ilaa waxaan uga baryaynaa in soo kabasho degdega ilaaha ayaan uga baryaynaa. aad iyo aad u mahadsantiin.